dislike macnaheedu waxa weeye qof la shiidaya tahay war dislike waa dhagax la isla dhacay war wallahi waa fahmtay warigada like iyo oodka waa kii alla wax ka dhifsiyo nin like ku siiyay iyo gabar like ta ku taabatay waxay ka dhigan yihiin qof oodka kugu soo horay thank you arleegta igu booba hololo waxa joogan la leeyahay rag iyo dumar la isla dhaafo beerta lagu wada jira waxa wajooda qeyray waa soo jeed warnabad iyo nolol inay nuxur buuran leedahay iyo in kale waxa ka horeysa war adigu waxa nuxur leeyna ku heesiso shiina culay ya nin caraba oo qurux dhashay buu ahaa wajiga waxa ay yeelay bariyo saanadii laha like ta ii saar hadii la gadan karo wartay ana soo gadan laha adeeraya marka waxba dislike ka qarsaninay war waxba nafsadiina been haw qarinayo cudure war heestaas ka dhig garay dadkii dislike videoga saaray ee dacaayada laga faafiyo leeyahay dislike la gatay ahay si aynu arinta u beenino oo uga daba tagno videoga kan like lagu boobo qofkii ka dislike saaray oo ka like saar halkaas lagu ogaanaya inay tahay wax sax ah dislike ina ayaa tahay sidee lagu helaa ina hooyo ma lagu soo gadan karaa kooxda waayaha cusub boqolkii kuna dislike aha ee ummadda Soomaaliyeed sida aan kala harka lahayn dhowrka saacadood ugu horiyeen maxay uga dhigan tahay waa musharaxii shil ku reebay oo doonaya inuu reaction milixisa wata oo aan dhuuntaba ku istaagin kaadiga uu ka sameeyo hees maahay oo habaar bay ahayd la magac baxday no dahana dhaafa ee kooxda waayaha cusub ku jaa'ifeeyeen xukuumadda nabad iyo nolol barnaamijka intaan u gudagelin waxa ka codsanaya videoga inaad si share gareyso oo la wadaagto asxaabta kale janaalkayga hadda ku cusub tahay subscribe ta taabo like tana war dislike maaha war like tana ii soo badiya war bal dislike ta iga ilaaliya ya aniga 100 kun oo dislike hela wallahi oo billahi diyaarad hawada shidaalka igula goodo oo ila soo dhacda taas iga xun 100 kun oo dislike ah ba iga xun نعم لها وفاذا روحي نبض غيستو نحل ذات اللوشا إلا نار مويه warwalaalayaalow idinku wada shisheeye oo idin lahayn baa joogtaan nabadda halka ku haysataan waxa tiin dad kale ku dul nool nin guri dhistay haduu banaanka ka soo hooyo oo ku dhaho war halka dhaxanta igala gal micnaheedu maaha inaad maxaa ku raadaayo guriga yeelatay micnaheedu maaha marka hadaa wadankiina inta ka soo qaxdeen oo ka soo caradeen aw wadan kale timaadeen de nabadda halka taala dad baa ka soo shaqaystay ina maanta taa ku naalootaan oo nabadii wadankeena ka soo iftiintayna amaagtaan meesha kuma jirin shiina ikhyaar oo magaca shiina maanta lagu yeeri ma shiina ninka intuu shaashadaha haysto waraniga sheekh lagu yeeray iga daayay magaca maanta waa tuuray shiina ikhyaar waani ma saaxiibanahay denika saaxiibadatiina waxa fiican ina uu markuu baxsado ana markuu baxsato waa jeclaa maanta inaan dislike ta maartay ku dhacaysa isu dhigo yeelkadeede maanta wuxuu ka dhigan yahay nin badweyn dooniyo kula digtay oo aan dabaal aqoon qof badweyn dooni kula digto aan dabaal aqoon hadaa tiraahdo waa badbaadinaya way isla dhimanaysaan marka shiino waxa ku leeyahay warnacala shida ku yaala dad si qanaba mineen mar diiba saa ummadii Soomaaliyeed ya ay kugu rubato kugu soo jeestay warino isma naqaanin doqonna mihiyo waxa way dislike ta kula socota inta ay raahdo way isu dhigaya war aniga aakhiro la igu diri maayo dislike tii kooxda waayaha cusub waxa la soconaa inay qariyeen oo ay maaragtay aysan hadda muuqan laakiin se qiimo ma leeyahay qariyeen waxaysan qiimo u lahayn xanuunka aqarsato waa ku qurunsadaa wixii aqarsato waa ku qurunsadaa dislike kasta oo hadda loo taabto YouTube-na waa og yahay iyaguna waa arkaan marka cudur ay ogyihiin bay naftooda u qariyeen marka waxaan inay iska sii daayaan ba uga qurux badneed inay qariyaan waa cudur ay ogyihiin mar walba waa u jeedaan marka waxaan leeyahay waayaa cusub oo dislike ta aqarsateen وعلى depression بقى قادسة وحايدين في عن إنا ضدك إسكار كان بعيدين في عن دور سؤالات بمبرهانش كجا جواب الدونا أو أي كم تهاي dislike تملا قدام كرا هسه هدي أي هالشيء سيدا المقلي واحد ضد بدنا نحبوت كريه صورة قلنا تها يوتيوب إنه ما نحتى كساره مركب برهانش كان أرمى سكو سابسي هاي مركان أوجد الجلو هرتو نحر كهسه مركان أوجد الجلو هسه مركب أوجه الرزورتو كوحة وايع عصب معها وايع عصب هاي hadda anu waxaan u bixiyay waayihii hore sababtu waxa weeye 15 sanadood 16 sanadood ka hor shiina culay aan telefoon haysan YouTube aqoon TV ba arag bay heesayeen
dadkaasi marka madad cusub baa waa qarni tagay qarnigii hore bay dadka kale heesayeen marka waaya cusub waxaan oran karnaa dadka cusub hadda soo baxay baan oran karnaa midda kale wajiga halka uga jeedaan wajigaasi waa cusub ma yahay idinka ina weydiiyay waa cusub ma yahay mise waxa moodaa ya qof intuu 10 sano kooma ku jiray maanta soo toosay marka horta kuwaas waa cusub maaha waayo hore ahaayeen waagi ay soo baxeen dadkii daawan jiray gabdhii daawan jiray maanta ama waa gashaantiyo guurdoona ama guriyaba leeyihiinba heesta halka laaxanka ugu horeeya uu ka galay waxa weeye waxay dhaheen nabariyan xidin baa heesta u soo qaadeenaa hadday oran lahaayeen nabadiyo nolol baa heesta u soo qaadeenaa xaaladdu sida waa ka duwanaan lahayd sababtoo ah xukuumadda meesha joogta waxa la yiraahdaa oo xisbigooda ay hadda ku diiwaan gashadeen oo loo yaqaanaa nabad iyo nolol aniga qofkii isoo maagaya qofkii raba inuu wixii sheego tashiino culay baa la dhahaa hadduu yiraahdo magacu isagu la soo baxay baan ugu yeerayaa te waa jaa'ifo weeye oo isaga rasaasta cagiisa ka bilaabay marka waxay ahayd laxanka ugu horeeya meesha ka galayna ay tahay waxa weeye meesha waxaan u qaadnay heesta nabar iyo naxdo waxay ahayd inay dhahaan nabad iyo nolol wixii ay doonaan ha dhaheen heestus intaa waa ka socon lahayd sidoo kale no dahana dhaafa warimayaba shalay waa ku heeseena waa tii la lahaa jaacayl ma lacag baa ma lishaanka dheer baa lagu ganay wadnaha baa ma lugooyadeediyo lalnimada wadnaha baa filis marka shalay lahayd may weynikii lahaa war shalaa qurbaad baadeene war luuqadii Soomaaliyeed dibba ma ka tagteen ma tirahdaan maya dhaha nadaafa ma inta tirahdaan luuqad qalaadna umada Soomaaliyeed inay ku heesto te maartay caado uma leh heesta hadaan dhaho hadda xabad baan ka u keenaya oo dib ugu noqonaya waxa weeye xasha wujuud waa dib waxa la yiri gurigeegu waa wada ul oo ul qaato male naba iyo nolol naq badana nabadba ma hayne away noloshu nerfe xanuunsheen matadii nuglay nabdada badane yaa loo noqo horninkan gurmad buu u baahan yahay dowladda Soomaaliyeed waa ay dhageysan jirtay hadday warkayga maqlayso waa idin xukumay diyaarad degdeg holo loo diro dadka soo jeed ku dilay soo jeed ku dilay ana xalaa sidaan ku meesh ka soo gura wallahi gabdhii Sacuudiga laga soo daableeyay iyagu wallahi waxa isla dhaamaan wakii alla wax ka dhifsiyo marka dowladay wax kastaba waxa weeye waxa la gacanta si kasta u xun tahay nina qurunkiisu ma soo uro si kasta oo dadkaasi maanta inii soo shiideen warade waa dadkiini saasa idin leeyahay marka heesatani de waa habaar hal meel oo aan ka amaano oo aan soo qaadan karo oran karo halkaas ugu fiican yihiin wallahi ma jirto hatta dadka heesta la keenay oo farfadhiyo oo mar waxa dhahaysaa war masanamba mar waxa dhahaysaa war mataala meel laga dhisayba mar waxa dhahaysaa wardada kani hatta markaan ninka wajigiisa arkay hogaamiyihii Darfur ka dagaalami jiray ee 1 milyan ku maqnaa ee maalin oo lahaa waa la soo qabtay oo maxkamadda adduunyada ICC baa la hor keenaya baan mooday oo waxaan mooday war makiibay soo qaateen baan isir mar dama la sheego inuu yahay nin Soomaali yahay marka dadka halka ka muuqda war dadkaas iyaga gurmad u baahan dowladda Soomaaliyeed waxaan leenahay dadka idin soo heestay war gurmad bay u baahan yihiin wallahi kama duwana kuwii Sacuudiga ka keenayeen qurbihiisii bay joogan Sacuudiga waxa weeye hadee Makka iyo Madiina lahaa war holano waxa joogan la leeyahay rag iyo dumar la isma dhaamo beerta lagu wada jira waxa wajiyada qeyray waa soo jeed waxa lagu leeyahay holan waxa weeye habeenkiina waa la soo jeedaa anagu waxba ku rafan meene maalintiina dadku ahordaa markaas qof la yiri habeenkii soo jeed maalintiina maxaa ku yiraahdaa seexo te waa qeyrmaya wajigiisa qarmiirmaya marka heestan waxaan anu ka soo qaado oo hadda ka amaano male like iyo dislike ma la gadan karaa haddii la gadan karo like iyo dislike shiina culay nin caraba oo qurux dhashay buu ahaa wajiga waxa ay yeelay bariyo saanadii laha like ta ii saara haddii la gadan karo wartay ana soo gadan lahaa adeeraya maba isku wareerineenba waan soo gadan lahaa marka horta wax dislike oo la gato ma jirto meel kale ay ka xaqiijinaya dislike halka ku dhacday inay run ahayd oo wax xaqiiqo ay tahay meesha ay ka xaqiijinaya waxa weeye commentigu 30 kun buu maraya marka dislike hadii la soo gatay commentigana ma la soo gatay ilaa commentigu waa ka dad Soomaaliyeed baa qoraya iyagay dhaleecaynayaan goor dhowna waxaan hubaa sidii ay dislike ugu baraaro ugu hambabareen oo u xireen commentigana inuu xiri doonaan marka commentigana ma la soo gatay
lama soo gadan dad Soomaaliyeed baa qoraya iyaga loo sheegaya waxba loo sheegaya war heesatan idinka idinma qalanto war dadka Soomaaliyeed qadafka ku tahay baa la leeyahay waa la canaananaya marka hadii dislike la soo gatay war commentiga ma la soo gatay waa maya marka dislike waxa la yiraahdo oo la gato ma jirto hadii la gadan lahaana cid iiga horeyn lahayd shiina culeeyo inta bariyaya ilaahayna wax siiyay waa iibsan lahaa dhac $100 dhigi lahaa tan kale fanaaniinta Soomaaliyeed waxa la socotaan inay inta maxaa ku yiraahdaa dislike isku baacsanayaan oo heesta ka dislike ka like badan tahay ay maxaa ku yiraahdaa ka sharaf badan tahay like ta faa'iidada laga helaa waxa weeye waa haybad weeye waa sharaf dislike tuna waxa weeye qof la bajiqiye baa tahay qof maxaa ku yiraahdaa xabadii dislike oo kugu dhacda dislike horta maxaa tahay weydii macnaaniya dislike macnaheedu waxa weeye qof la shiidaya tahay war dislike waa dhagax la isla dhacay war wallahi waa qanto wariga qof gabigaagu la shiidayo oo meeshu taagaba la jabinayo baa tahay like-na waxa weeye qof la sharfay oo haybad leh waxay ka dhigan tahay Soomaalidu waxa ugu fiican isku soo riyan jirtay muqmad buu ahaa oodka qof intuu reer martiyay oodka lagu soo riyay oo oodka cunaya bay like ka dhigan tahay like iyo oodka وكي الله حكى نفسيه نين لا يكسيي يو قبر ليش لا يكتكو تابتي وحكى دقيقين قف أوتك كوسورة thank you أغليك تيجو بابا ليك تلعق لقمه لكن وهيبة ميدا كله جنال كاجا marka leegtiisu badan tahay macnaheedu waxa weeye positive waxa fariin fiican baa laga gudbiyay YouTube ku xisaabtamaya marka laakiin dislike tu badato macnaheedu waxa weeye waxa tahay laguna ma dhacsana karaahiya tahay taas waxay keenaysaa marka in YouTube ku hoos u dhigo maxaa ku raad dadkii ku daawan lahaa oo recommendation oo ku siin recommendation waxa weeye wixii aad soo gelisid in YouTube ku dadka maxaa kula taliyo inay daawadaan oo u tuso marka hoos baa lagu gelinayaa marka waayaa cusub dislike ee maanta heleen waxa ka dhigan tahay channelka inay ka guuri doonaan waaba ka guuri doonaanba sababta YouTube ku qiimeynaya wuu arkaa in la karaahaystay wuxuu oran doonaa war kuwa ka subaca oo ummadii sida uga qeylisay waxooda damayaan aragba khaanadu hoos u dhigaya wax walba soo galiyaan boqol qof dib u daawan doonto marka horta khasaarahaas leedahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee isla qaad walaaya 24 saac ba hadii dislike la isu gadan lahaa haddii like la gatana ilaa inta iyagiiba maartay isbaacsanay iyaga kala iibsan lahaa heesta ugu like ta badan heesaha Soomaalida waa heestii guulaysinba oo maalintii dhow soo qaaday waxaan filayaa inay 40,000 waxa weeye like ba haystaa heesaha Soomaalida ugu dhaantada badan ugu like ta badan waa heesta dhaantada ah dirgax la dhaho heestaas hatta like inta like ma haysto marka dadkaas horta waxa ku tahay backfire ba ku tahay dhibaato badan ay sugeeyeen kama duwana dad istoogtay like ta ay maanta dislike ta ay qarsadeena xanuun ay qarsadeen bay maxaa ku raahdaayay uga dhigan tahay ummadda Soomaaliyeed waxa kula talinaya Turkigu sida uu dadkiisa waayeelka maanta corona uga qarinayo oo uga ilaalinayo heesatan fanaaniinteeni hore iyo abwaanadeeni waaweynaa ee maanta waayeelka ha looga qariyo والله waxaan ka baqayaa hadii heesta Xasan Aala Samatar maanta loo la dhageysiyo loo Soomaaliya ama saa u heesaysa inuu garkoodna istaagi lahaa baan u malaynaya hadraawi oo sariir taaran hadii la tusi lahaana wallahi waxaan ka baqayaa inuu ka soo noqon waayo marka waxaan kula talinayaa dadka Soomaaliyeed war fanaaniinteeni iyo abwaanadeeni soo jireenka war heesta laga qariyo wallahi hadii daawadaan waxay u badan tahay inay ka soo noqon waayaan muraayadu jabto bay u badan tahay marka kooxda waayaha cusub waxay islahaayeen heesatan dawladda iyo shacabka ka dhex faa'iideysto iskaga horkeeno madax isu geliya laakiin se dawladdu waxay tareen farmaajo xalisi fiican buu saxday marka dad ba agtiisa jooga oo waxa kan la socdo oo u waramaya madaxweyne waxa la oranayaa heesatan 100,000 ee dislike ta saartay taariikhda adduunyada meel ka dhacday male 100,000 waa dad adiga ku taageersan farmaajo marka kaba waaweyn uu gashaday maanta kaba waaweyn uu gashaday oo maxaa ku yiraahdaayay heestana dadkii like saarayay laba isugu jireen dad xukuumadda taageersan oo xaqabadkeeda la dhacsan iyo dad ka daalay mucaaradnimo iyagoo aan dawladda taageersanayn laakiin aan ogolayn haddana dawladda iyo dadka inta la iska horkeeno in dawladda la jaa'ifeeyo oo leh dawladda madaxliyeed baa la doortay wixii ay qaban karto ha qabato laakiin ijiidan ku jiiday waa gacmo daalis Soomaalidu waxa ka muddo dheer ku soo jirtay haddana kuma jiri karto marka labada maxaa ku raahdaa dad ba isugu jiraan dadka Soomaaliyeed
fursadeena siinaya fursadda siinaya waxa weeye kuwa le dislike ta waa la soo gatay oo dadkii halkaas saaray dislike ta wixii ahaayeen dad soo gatay war dadkii dislike ta heesta saarayo hadii waayaa cusub waxa la yiraahdaa hadii bulla waayo bariisa la helaa waayaa cusub dislike ti hadayna ka qarsadeen war halkan video kan like ta la saaro kayga kan like ta la saaro oo muujiya dadkii dislike ta ka saaray inaad tihiin dad caadi oo kana like saari kara ملاك ما كنا لوسو قدنيا كنا ما يحولون دون عليك بالوسو قتي ما يا أدونكو لايك ديسلايك لقيتو ملا مركا واحد إذا قعد سنة أو إذا كلت لنا دات كي ديسلايك فيديو قاساري الدعاية اللي جفها فيه اللي هي ديسلايك لقيتها بهاي سيرنا أنت أبينه أو قد ضبطنه فيديو فيديو كان لايك لقبوه قفكي كان ديسلايك ساري وكان لايك سار halkaas lagu ogaanaya inay tahay wax sax ah fursadaasna waa idin siin doona waana idin siiyay kooxda waayaa cusub waxaan leeyahay feesta hadaa tihiin dad xisaabtamaya ninba wuxuu yiri aniga waligeeyga ma garin sababtoo ah gartayda banaanka intaan joogo baan qasaraabay war hadaa dad wax qaadanaya tihiin heesta waxa weeye marka aragtay ummadda Soomaaliyeed inay ku kacdo ka hortimi xaasha wujud wixii ahayd inaa saartaan oo dilid galaysan ma ahayn inaad dislike qarsataan oo cudur aguriga dhigataan ma ahayn oo depression lagu ku noqdo heesta ina saartaan baahayd anigoo shiina culay video hadaa soo galiyo YouTube oo aan arko in sida ummadda Soomaaliyeed uga hortimi markaba waa saari lahaa ama waa xiri lahaa sababtu maxay tahay anigu yaan wax ku ahay yaa wuxuu sheegaya waxa wax ku ahay waa dadka Soomaaliyeed waxa wuxuu sheegaya waa dadka Soomaaliyeed wixii dadka Soomaaliyeed ay diideen de ana isceebaynaya waa ina saaro marka waa yaa cusub leeyin kama filayn inaad wixii qarsataan wixii ahay war ina saartaan bay ahayd heestuna nuxur male oo naf male kana heestiya oo le nabad iyo nolol nuxur buuran male war ina nabad iyo nolol nuxur buuran leedahay waxa ka horeysa bal ila eeg hadalkiisa نبر إيا نحدن نحر بور المالي ويكون بيان ضد حالة مالي كالي قبلنا فيي مثلنا حي war nabad iyo nolol inay nuxur buuran leedahay iyo in kale waxa ka horeysa war adigu waxa nuxur leeyna ku heesiso maxaa nabad iyo nolol nuxur ka hadasha adigii baaba waxaan nuxur lahayn oo waliba naxli ah adigii baa ku heesaya markuu leeyahay miskana xayle saas hoos baa isha ugu dhigtay mise ilaahay baa iga sareeya wan sumala oo inta la kormay xiniyaha laga garaacay baa mudda baridu inta saaleegtay ninka la miskana xay isagu inta ma taqaadka damita soo leegay gabar garooba oo lix soo dhashay oo maxaa ku raahday ilaahay uu siiyay oo nimco ku dhex jirta oo saaw kala kacday baa mudda wiil kale oo dadka ku caayaya miska naaxay ku caayaya marka waxaan leeyahay oo kooxda kula talinaya xaasha wujud maanta qeelba in kaga dhacday heesta saara leeyni kama fadhiyeen dislike xirataan oo cudur qastaan heesta ina saartaan way oday Soomaaliyeed baa talada in siinayo waa talabada anigu qaadi lahaa aniga video aan halka soo galiyay hadii sida loogu kici lahaa wallahi waa saari lahaa ama waa xiri lahaa marka waxba dislike ka qarsaninayo war waxba nafsadiina been ha u qarininayo cudur war heesta iska dhil garay heesatan dadakan shalay dad baa wixii lahaayeen heesta like teeda iyo isma laha daawashada view dadka viewers ko daawanaya real time maaha aniga video-gaan soo galiyo waxa laga yaabaa isagoo konton kuna arko aniga inay daawatay ina adigu aragto 20 kun kaliya waa u jeedaan maanta heesti 300 oo kun ba daawanaya waayaa cusub waxa leeyahay war xisaab qadan isku dhufanina 300 oo kun oo qof oo video-giina daawatay ha u qaadanina dadina jecel 300 oo kun waxa u yimaadeen dislike inay siiyaan waa la siiyeen waa haystaan marka waxa weeye hadaa ragtiin bahasha dib u fura hadii ala fiin oo baqdeen adeer yaaro video-ga maxaa ku raahday naga saara ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay midugta xiligeed waa dhamaatay Allah idin sharfo tani inta barnaamij kan lamida ku kulmi doono waa musharax 20 kureebo idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh